السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد ميلاد joogtaan ba waydi salaamaya dhammaantiin. Allah idin salaameeyo yeelo dunya akhraba. Waa YouTube ma Khalid. Soomaaliya meelaad joogtaan ba dhammaantiin waydi salaamaya 14 boqolka Allah idin salaameeyo dunya akhraba. Alxamdulillah waa afurnay anagu waa fiicannahay alxamdulillah ilaah baa naga wanaagsan idinkana sidaa iyo si lamida baan ilaahay idinkaga baryahayaa dhammaantiin meel aad joogtaanba alla waxaan idinkaga baryayaa cafi iyo caafimaad baan alla idinkaga baryahayaa intii dhibban oo dhibo haysana ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu ka dulqaado intii wanaagsanna ilaahay wanaagooda inuu sii siyaadiyaan alla ka baryaynaa isagaa raxmaanahu raxiime alxamdulillah ilaahay baa mahadda iskale caafimaadka iyo risqa iyo kulli shay na siiyey baan Allah subxaanahu ka baryaynaa alxamdulillah wa shukru lillah baan leenahay mar walbana waa nagu waajib inaan dhahno alxamdulillah ilaahay markuu caafimaadna siiyo xubnaha iyaga uu caafimaad siiyo ehelka iyaga caafimaad ilmaha iyaga caafimaad siiyo guriga iyaga wanaagiisa iyo khayrkiisa ilaahay noogu na siiyo alxamdulillah wa shukru lillah inaan dhahno ilaaha subxaanahu ayaa muxuu hayto ayaa mahad celintaas iskale alxamdulillah mar walba iyo mar labaadba iyo mar saddexaadba iyo kun goorba waxaan leenahay alxamdulillah wa shukru lillah walaalaha dhammaantood ilaaha waxaan ka baryahayaa gabdhaha caruurta laga haysto oo banaanada joogo iyo odayaasha caruurtoodii la haysto ilaaha subxaanahu wa tacaala inuu gaalada uga soo furdaamiyo ilaaha subxaanahu wa tacaala baan u baryaynaa ma qof lagu jiro ilaahay baa og intii dhibban oo cuduradaas ku dhaceenna waxaan leenahay allaha subxaanahu wa tacaala ha ka kiciyo ilaahay ha ka kiciyo meel walbo la joogo cudur kastoo la qabo iyo noocuu yahayba ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka dulqaadaan leenahay intii caafimaad qabtana waxaan leenahay allah u siyaadiyo dhammaan inta soomaalida meel walbo ay ku jiranta iyo islaamkuba ilaaha subxaanahu wa tacaala ha caafiyo nabadgelyo taama iyo risq waasacaan alla weydiinaynaa ilaahay idankiisa Soomaali waxaa weeye waa wada walaal waa wada ehel waa wada dad meel walbo ay joogaanba dad walaala oo walaala weeye dhibtii meel ka dhacdana qolo walbo oo Soomaaliya ay dhibaysaa maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo islii iyo Soomaalida masaakiinta ayo awalba xaaladooda u shabooc ay ugu tukbayeen nimankii la dhihi jira kuukaayo ul boocolaha bay ugu tukubahayeen laakiin Allah subxaanahu leeyihiin iyaguna allay leeyihiin meel walba la joogana Allah subxaanahu wa tacaala qaaliqal bashara waa joogaa meel walba oo muxuu hayto muslim lagu cadibaya ama dhibo ka jirto Allah subxaanahu wa tacaala baa la wakiilsadaa asagaa u helinoo kugu filan ma islii kaliya cudurku ku dhacay mise adduun weynahoo dhan buu ka dhacay islii kaliya kama dhicino cadaawo horaa jirtay oo la rabaa in maalkooda iyo dadkooda iyo lagu baabi'iyo lagu banaysto la rabaa sababtoo taa waxa weeye adduunkoo dhan buu ka dhacay wadankoo dhan buuna ka dhacay islii kaliya maahan in askar lagu daadiyo wadanka ha la xiro ha la yiraahdo muxuu hayta la xiro sababtoo taa cudur baa dhacay oo adduunkoo dhan baa la xiray laakiin maahan in gaar ahaan askar lagu daadiyo la dhibaateeyo oo biyo lagu shubo oo baabuur loo soo qaato maahan nin baan ku muxuu hayta kuugu taagnaa ul booca kuugu taagnaa haddana kaa helay fursad yar sidiisii buu yeelay si kale ma yeelin dadka Soomaaliyeed oo garaad daranka ah xoolahoodii maalintay ogaadeen inay Kenya dhibaato wado xoolahoodii xal uga samaysan waayay ayaan hadda waxa weeye dhibtooduna dhibaysaa sababtay taa waxa weeye adiga wadankaagii iyo dhulkaagii ciidaadi kugu haysta adiga khayr kugu geli maayo adigu waxa tahay baaba iska yar Allah marka subxaanahu u baryaynaa waxaan leenahay ilaahay ha ka dulqaado ilaahay dhibta ay ku hayaan dadkaas waxa weeye meesha degay oo muxuu ahayd dukaamada ku haystay oo guryaha ka dhistay oo meeshii deegaanka ka dhigtay dhibta ay ku wadaan Allah ka qabto ka xijaabo wadaadada jooga odayaasha jooga muxuu ahayd culimada mar walba ka hadasho jooga ilaaha subxaanahu waxaan leenahay Allah idinkaga badbaadiyo maalkiina iyo naftiina iyo caruurtiinaba ilaahay idinkiisa waa gaala madowna sharaf awalba muxuu ahayd sharaf ay leeyihiin ma jirin Allah ka idinka qabto
الله idinka qabtaan leenahay biidmillaah baan idinkaga soo ducaynaynaa maka iyo madiinaba waaba la isdhaamaaye gaalmadu ha ku dhacdaa adduunka kuugu daran muslim hadduu ku dhaco dhibba ma lahaateen bay ila tahay laakiin gaal madow ha ku dhacaaba adduunka kuugu daran ha ku baabi'iyo oo wadankaaga awal kugu haysto ciidaada kugu haysto naftaada kugu haystay oo haddana ilmahaagii iyo kugu haysta muxuu ahayta maalkaagii ilaahay hayna ka qabto awal bay wadankeennina ku haysteen oo badeennina ku haysteen oo inkastoo baddaas ayna ku haysteen iyo beriga ayna ku haysteen waa mid anagu gacanta u gelinay ma ahan mida iyagu ay qasab ku soo galeen oo qasab ku haysteen ma ahan waa mid anagu gacanta u gelinay Soomaali kala gacanta u gelisay Soomaali kala badeena gacanta u gelisay inama soo raadsadeen badeennana kuma qabsadeen ee Soomaali baa gacanta u gelisay berigeennana kuma qabsadeen Soomaali baa gacanta u gelisay hadeerna kuwaaba la rabaa oo durbaanka u tumaaya hadeerna kuwa u raba durbaanka u tumaaya laakiin Allah aan leenahay subxaanahu wa ta'ala dadna waa leenahay oo Soomaali baa nala yiraahdaa waxaa noogu daran intaasoo sano in dagaalka iyagu socdo dhibtayadu socoto cimriga iyagaba dagaal iyo masaa'ib ku dhamaysan sababtay tahay Soomaaliya horaa loo kala qaybiyo loo baabi'iyay haddana weli baabi'iskii baa nin baa wuxuu ku qaadanayaa xoogaa lacaga ku qaadanay misqaala daratina shalana badii ku qaatay maanta birigu ku qaatay intaas dhibaatada inta wiil Soomaaliya oo miskiin oo ku dhimanayaan oo ma jeedo asaga iyo reerkiisu say u noolaan lahayn un buka taliya laakiin wallahi inay waxba u taraynin adduun qaliil ah haddaad ehelkaaga ku baabisido walaalaha ku baabisido dhibaato muslim ilaahay dhex dhigtid dhibaato u horseedid inaadan ma adiguna weligaa khayr helaynin wadan faa'iido helaynin sababtay ta wadankaagii baad iibsatay ciidaadii baad iibsatay berigaagii baad iibsatay baddaadina waad iibsatay nin muxuu ahayta gaal ah oo raba inuu gaalo kuusoo adeegsadana farahaad ka gelisi ilaaha subxaanahu wa ta'ala waxaan leenahay Allah ina ka qabto haddaan muslimna ummatul maxamed Allah ina ka qabto wixii dib inoo wada Allah ina ka qabto anagu dhibna kuma wadno macayrsanayno dhibaato uma wadno ayaga sadibtooda Allah ina ka qabto awal bay wadankeena haysteen awal baan hameynaya maalinba colaad dhibaato iyo uurxumo la seexan weyno wadankeena ay Kenya haysatay iyo Ethiopia inta la midaba markana inay maaragtaa ay dadka yagii xaqoodii ay ku darsadaanin waa dhibaato adduun marka Allah aanu baryeena sidaanu dadka iyaga ilmaha iyaga la qaatay Allah ugu barino Allah noogu soo furdaamiyo ayaynu iyagana Allah u baryeena waa dagaalamayna dhihimayno sababtay dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho adduunkana waxa weey maanta qalin baa lagu kala baxaa adduunka maanta siyaasad baa lagu kala baxaa iska orod qab qoriban qaadanayna waa wixii shalay ina baabiyay waa wixii shalay Kenya inoo geeyay waa wixii shalay ina baabiyay kuma naankumko inoo kaga dhinteen dhihimayno adduunkan siyaasad baa lagu kala baxaa qalin baa lagu kala baxaa ayadan ku kala baxayna insha Allah biidmillaah markaanu anagu degno salka iyaga dhulka dhigno marka ilaa hadda salka dhulka kuma hayne hadda ilaa salka dhulka kuma hayne dadkaas waxaan nahay haba qolob meel uga soo baxayso haba qolob faaskeeda oo afaysanaysaa nahay oo iyagu ay ka rabaaneen inay maaragtaa ay dhibaato naga dhex dhaliyaan ama halakan kuwa yoogan maryaha waaweyn ha noqoto ama kuwaas madow oo muxuu hayto kukaayada ha noqoto iyo kuwa la midaba nin walba asaga dantiisa naga wata laakiin anaguna waa muxuu hayto oo fariisanayna waxa la qof fadhiya lama lagdaa la yiri waxaan idin sheegay Soomaaliya nin fadhiya lama lagdo waa fariisanayna haddaan Soomaali nahay waa xoogaysanayna ilaahay idankiisa waana guuleysanaynaa haddaan kitaabka haysano إله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أن مر والبعفك أن كوهينه إله إذا كيس وجولي سنينا صومالي وجولي سنسا قد هذا يبرج هذا ولا وريجسا محوها الشدال كذا ولا صباح حسا سيداني صومالي لنا لا يقانو أن ضدك عاون شرنا وعاوننا مال والبؤدون كل جتشوه صدقة دي هبر والبماشة دي صدقة دي الله بحساب كبير إله إذا كيس بإذن الله ضدنا ولانا يا dadna waa leenahay oo ciidamadeena maanta ma sha Allah tabaaraka Allah waa kuwaasaan ku meel walba ka guuxay anagii baan rabnaa inaan faysha ku dhigno anagii baan rabnaa inaan ciidamadu noo kicin anagii baan rabnaa badda inaan badeena aan raadsan anagii baan rabnaa inaan beeraheena falan anagii baan rabnaa inaan dhulkeena ayna ka risqsan ma rabno
ma rabno sababta anoo kaligay ahaan rabinin anoo kaligay ahaan raba inaan wadanka noolaado inta kalena dadku baaba'aan inaan anigu noolaado iyo ilmahaygu dadka oo dhan baaba'aan Soomaaliya waa sidaa ninna kama taliyo dadka dantiisa wuxuu ka taliyaa dantiisa iyo danta asaga gurigiisa iyo caruurtiisa oo bas faqad hebel halkaas uu tagay hebel halkaas sartaas uu iibsado halkaa kor uu fuushan yahay baa ka rabnaa kama rabno dadka yagi maxay noqdeen wadanka yagiis muxuu noqday midna kama rabno mana soo maqashin kartaan ma rabno Soomaaliya waxaan rabnaa inaan noolaado anigu inaan noolaado anigu inaan guri dhisto adduunka inaan anigu mulkiyo inaan aakhir ilaahay baa igu leh laakiin waxaan rabaa adduunka in magacaygu dadkaygu aniga ay bariyaan rabaa Soomaaliya waxay rabtaa waa sidaa nimanka muxuu hayto ii sheeg muxuu ahaa nimanka siyaasiyiinta waxay rabaan waa sidaa nin walba reerkiisa inuu asagu madax u ahaado asagu la daba galo asaga la taageero asaga dabadaan ka shab ku haynaba uu rabaa sababtay tahay badeenibu soo gatay xooluhu haystaa malaayiin dheer haystaa baabuur baa lagu waardeynaya ku garan waayo inuu finisho rabaa ku garan waayo inuu soo celiyo rabaa ku wuxuu rabaa bahdilaada inaan ugu jirno waa qabiilka iyaga hadda maxaan sameynaa waa qabiilka iyaga waa odaygiina xukumay way waa qabiilku waa oday kaaba qabiilka ilaa uu xooluhu uusan lahayn buu soo dhacay saasay rabaan Soomaalida nimankeeda inteeda badan ilaahay subxaanahu wa ta'aala tawfiiqdahana waafajiyo laakiin maanta dadweynaha Soomaaliya hadaan Soomaali weyn maanta waa ka soo horjeednaa waxaas oo dhan waa ka soo horjeednaa wallaahi baan kuugu dhaartay hadduu aabahay yahay maanta waa ka soo horjeednaa ilaahay u naxariisto walaalkay waa nool yahay hadduu nool yahay uu yiraahdo maanta madax baan noqonaya kursi baan fariisanaya waa isugu ku wareejinaya anaa saa isugu ka wareejinaya adiga caruurtaada xukumaya ka yeelmaya allah ku dhaartay gacanta ka soo taagay maafi waa ka soo taagna no baan leenahay no hadaa no garanaysaan iyo hadaa maafi garanaysaan iyo hadaan waadiina aad garanaysaan saddex luuqadoodba waa ka diidin maanta waxaan rabnaa nin Alle rasuul garanayo oo qabiil ku shaqeynayn oo wadanka yagi xukuma oo dadka beeraha yagi noo fala oo badiya bir oo sidaa u fiirino saxan qaruurada shay lagu dhaxrida amu ka dhumaya Soomaaliya dhamaanta saas u fiirinaysa ninna la qabiil maahan anigu Soomaaliyeed baanahay ninna la qabiil maahan wallahi iga taayay wacadka Ilaahay inaan ninna la qabiilahayn hooyo Soomaaliyeed baana ninkii rabaa inuu kursiga isugu kaayo wareejiyo calafkaaga waa tuu Ilaahay dhadiyaa baan ku yiri bartaana ka soo taagana ninka la yiraahdo farmaajo saasaan u fiirinaynaa wuxuu qaldo allaan kuugu dhaartay oo ilmahayga ugu yar baa og baan ku yiri iska daa Soomaali weyn oo meel walba uga jeedo wuxuu qaldo waa u jeednaa ra'iisul wasaare wuxuu qaldo waa u jeednaa kuwa baarlamaanka waxay qaldaan kuwa baarlamaankana waaba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kuwa uu soo dhaafiyay Soomaali weyn waa inay wax doorataa ma rabna in baarlamaan wax doorto lacag ay jeebka ku gurtaa odayaal keeneen oo nin walba 10,000 100,000 markii gacanta loo galiyo khalaas saas u dhacay jeego ilmihiisi waa waxa weeye meel buu helay dhag dadkii Soomaalina waa u khiyaamay kaas haday saa noqdaan Ilaaha subxaanahu wa ta'aala baan raacin Allah qaal qalbasharahan raacin waxaan rabnaa dadweynuhu inay maanta wax doortaan inaan gacantayada anu bahalka ku ridnaan rabnaa ninkaan rabno Soomaaliya oo Ilaaha subxaana kursiga u qoray inuu fariistaan rabnaa markaasna aan sidaas dabadiisa u taagnaano saa u fiirno wuxuu kor u qaada waxaan waa qalada dhigay kana fiican hadduu asagu wax wanaajinay aan kursiga u dayno dawladaha waxa la qaybsado garabkiisaan taagnaanayna mid kasta oo la doorto garabkiisaan taagnaanayna hooyooyin Soomaaliyeed haddaan garabkiisaan taagnaanayna annaga difaaca la galayna Allah ku dhaarta shalay baan oo gabar yar oo 13 jir wali taariikhdayda kagama soo sheekayni ayaan dagaalkii Itoobiya wax ka soo galay waa ka diidnay marka Soomaaliya maanta qiyaamadii iyo laalaabkii iyo qabiilow iyo hebelow iyo kaalaynin inuu ugu shaqaysto adeer aniga wax soo doortay nin baan qabiilkaaga ka wadaa qabiilkayga Allah baan ku iri Ilaaha subxaanahu wa ta'aala xaqa soo fahamsiiyo ma rabno qabiil muxuu hayto waxaan leeyahay marka Soomaaliya maanta Soomaaliya indheedu haday laba ahaayeen maanta waa 10 weeye qofkiiba 10 dagaal waa soo diloodo baaba waa soo diloodo muxuu hayto taariib waa soo diloodo ilmo maanta waxaan meesha ku haynaa aan Soomaaliya ahayn baan bajirinba qurbo waxaan ku haynaa male Soomaaliya maanta indhaha iyagu shan bayihiin dadka Soomaaliya jooga oo qabiilka masaakiinta oo aqalgii ka xadeen maanta waxa idinka yeelay maanta dadka Soomaaliya jooga dad ugu aqal badan oo ugu aqoon badan oo ugu diin badan oo ugu dal jecel baan ku idin waad ogeydeen shalay baan ku markii Turkiga dagaalka ogeydeen ka dhaceen waad ogeeytay dhigeen baan ku waa runtood dantooda ka talinayaan
madaxweyne loo danaynayo waxa loo dalinaya dantooda nin walba u talinayo wuxuu beebeega u fuulo isagoo nin xabad ku soo ridayo dantiisa danta ilmihiisa iyo reerkiisa iyo dadkiisa iyo ehelka iyo dariskaas la noolonol buu dalinaya ninkaas marka anagu waxaan ay dhiga wax laga siibay oo wada qaatayaal oo caleensay u cunayeen dhamaaday oo xaaladooda aad aragteen say wadeegiin baabuurta markay saaran miyaan ku jirnaa marka anagu may taa ku ma jir karno Soomaaliya waxa weey indihiin haday hal ahaayeen 2 ka dhiga oo 10 ka dhiga oo 5 ka dhiga oo waxa weeye qabiil ha u hiilinina qabiil waa kan cadaabta lagu galo ogow qabiil waa horaan uga soo sheekeeyay qabiilku waa midka cadaabta lagu galo cadaabna ma rabna inaan galno jannaan rabna inaan galno jannaan rabna kitaabkaas halka saaran Ilaaha subhanahu wa ta'ala ba soo dejiyay wixii uu iga reebana waa ka haray wuxuu raacana waa raac ma yeelayno inaan maaragta muxuu hayto in nala ku tunto ma rabno gabdhuhu ma taliyaan gabdhuhu ha aamuseen oo group ay ka hadleen bahalko iyo waxa ma jiraan nabigeen maxamed alayhi salaatu wasalaam maalintii uu maka cimrada intay soo aadeen laga hor joogsaday gabar boo hatii tiri xiirta nabiga xiira ku tiri alayhi salaatu wasalaam ha kugu daydeen muxuu ciidamadaada gabar bay ahayd uu ka yeelay intuu xiirtay iyagoo dhan xiirteen markii horena ay diideen waxa way gabdhuhu waxa way hooyooyinkii soo koriyay way hooyooyinkii soo dhalay way hooyooyinkii nin walba oo kursi ku dagaalamaya keentay way oo meesha soo istaajisay ha u malaynin dumarku inay aqli daran yihiin oo aqli aysan lahayn aqli baan leenahay wallahi baan ku dhaartay inaan adinkeedii ka aqli badan ma ahayn inaan ka aqli yarayn ha u malaynina hooyada inay ka hadasho ma gruubyada maxay bahalada maxay YouTube-ka uga hadlaan YouTube-ka dantayada naga hadalsiisa adinka naga hadalsi guriyaha iyagaan ba fadhiyi lahaynba ilmaha iyagaan korsan lahayn dib oo dhan waana dhaafi lahayn laakiin adinka naga hadalsiiyay markaad adinka tuug noqoteen markaad guriyihii iska furateen oo aruurtii disheen oo gabdhihii qabsateen oo adduunyaha layseen wiilashayadii Ilaahay khayr badan ha idin markaas anaga waxa weeye hooyooyin baan nahay anaga idin soo korinay anaga idin dhalnay anaga meeshaan aad hadda taagantiin Ilaahay baa idin soo garsay laakiin anaguna waa idin soo garab qaban idin soo gacan qaban laakiin waxa tiraadeen hooyooyinku muslimku wuxuu yiri gabdhaha guriga ha fadhiyo ma muslimku ma dhihin adinka Soomaaliya ha kadaabiin oo been sheegaya adinka been sheegaya Soomaalidu nimanku naag miya hadli karta naag miya yeeli karta naag maya naagtu waana hadli karta waana waxaana weeye hooyada ku soo korisay weeye Ilaaha subhanahu laga baqo wiilku waxa weeye gabadha markuu soo guursado ma ahan inuu istaqliyo waa inuu wiilku gabadha markuu soo guursado inay walaashiis tahay oo la noolaanayso oo wixii ka dhiman laba qof oo Ilaahay isku laray inaad tihiin oo waxa weeye intaad qabanaysid ayaduna ay guriga intoo kale alla mas'uul uga dhigay ka dhiga waxa weeye waxaad ogaataan gabdhuhu ha u malaynina inaan wiil iyo gabar kaliya u kala doodayo gabadhanu haday khaldanta khaladka waa inay joojisaa hooyo weeye waxa weeye wanaagaysa iyadu guriga ka sameeyay ciidu kama sameyn karto